Anderson Hayes Cooper waa khabiir saxaafadeed iyo qoraacaanka dalka Mareykanka waxa uu dhashay 3 Juun ee sanadii 1967 waxa uu ku dhashay duleedka magaalada New York ee dalweynaha Mareykanka. Mr. Cooper waxa uu wax ku bartay kuna barbaaray dalka Mareykanka marka laga yimaado mihnadiisa saxaafadeed iyo tiisa qoraanimo waa shakhsiga ugu caansan dunida ee dhinaca dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Mr. Cooper waxa uu muddo ka badan 20 sanadood u aaminsanaa in rag isguursan karo. Anderson Cooper waxa uu ku soo shaacabaxay kadib markii uu noqday wariyihii ugu horeeyay dunida ee shaaca ka qaaday inuu yahay waxa reer galbeedku ugu yeedhaan geyga ama ragga isguursada. wariye Cooper waxa uu suuqa warbaahinta qabsaday kadib markii uu xaas u noqday Benjamin Mason oo ah wiil dhalinyaro ah oo si hoose u saaxiibeen sanadii 2009 kahor inta aanay maxkamadda Mareykanka horteeda ka shaacin inay isguursadeen. waqtigaasi oo uu ka bilaabay telefishinada Mareykanka inuu si badheer ah ugu doodo ragga isguursada uu kuna faano inuu xaas u yahay nin rag oo lamida. waa shakhsiga labaad ee muslimiinta dalka Mareykanka ugu neceb yihiin waana cunsuri dhinaca diinta Islaamka. muslimiinta dalka Mareykanka ayaa dhibsada markay arkaan Cooper sidoo kalena ma daawadaan dhammaan barnaamijyada uu sii daayo waxayna isku dayaan inay gacanta saaraan markay suuqyada New York ku arkaan isaga iyo ninka qaba oo si xaraga leh ku wada socda suuqyada waaweyn ama ay u dalxiis tagaan goobaha lamaanayaasha dunidu tagaan. waqtiyada fasaxa isaga iyo ninka uu xaaska u yahayba waxay isla qaataan waqtiyo warbaahinta ka soo horjeeda dadka isku jinsiga ah iyo muslimiinta Mareykanku ay shaaciyaan. waxa xusid mudan in ninka qaba Anderson uu ficil uu ka hinaasay Anderson uu la sameeyay nin lamida oo isna geeya horaantii sanadkan. warbixin dheer oo lagu daabacay wargeyska Daily Mail ayaa soo bandhigtay sida uu uga hinaasay Mr. Cooper ficilkii uu sameeyay ninka qaba. Anderson Hayes Cooper waa shakhsi mamnuuc ka ah in ka badan 14 wadan oo muslima oo ay ka mid yihiin wadamada ugu waaweyn dunida Islaamka sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Kuwait, Malaysia, Iran iyo wadamo kale oo mamnuucay in suxufigan la qaba uu yimaado caalamka Islaamka. hase yeeshee Somaliland ayaa noqotay wadankii ugu horeeyay ee muslima ee lagu soo dhaweeyo ninkan geyga ah isla markaasina ay qaabilaan madaxda ugu sareysa dalka oo ay ka mid yihiin madaxweyne Silaanyo iyo waliba xubnaha golihiisa wasiiradu. inkastoo aanay cadayn sababta uu Cooper oo ku caanbaxay inuu fidiyo aragtida dadka isku jinsiga ah ee isguursada iyo inuu lacag ku bixiyo sidii dad badan oo dunidana looga dhigi lahaa gey uu u yimid gudaha Somaliland, haddana waxa la sheegay inuu barnaamij ka diyaarinayo dugsiga boardingka ee Abarsa Tech oo uu leeyahay nin Mareykana waxna lagu baro dhalinyaro rag iyo dumar oo reer Somaliland. balse waxa xusid mudan in wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka ee xukuumadii madaxweyne Bushkii labaad laguna magacaabi jiray Mr. Colin Powell oo ah nin Christmas ah uu diiday inuu salaamo wariyahan geyga ah. arrintaas oo warbaahinta caalamka iyo muslimiintu ay faafisay, haddana waxa wax lala yaabo noqotay in madaxda Somaliland oo muslim ah ay soo dhaweeyaan salaamaan islana sawiraan ninkan haysta dhaqan Ilaahay iyo diintiisuba ay xaaraantimeeyeen. madaxda xukuumadda madaxweyne Silaanyo ayaa warbaahinta caalamka ku galay inay noqdeen muslimiintii ugu horeysay ee isla sawiraan Anderson Cooper. culimada Soomaalida ayaa cambaareeyay dhacdadan halka warbaahinta caalamka sida Daily Mail ay daabacday warbixin ay ciwaan uga dhigeen Somaliland oo noqotay maamulkii muslimka ahaa ee ugu horeeyay ee soo dhaweeyay ningeeya. isku soo wada duuba warbaahinta Somaliland ayaa aad u faaqidaysa toddobaadkan suxufiga geyga ee Somaliland ku sugan maaha markii ugu horeysay ee qof faafiya dhaqanka dadka isku jinsiga isguursada lagu arko gudaha Somaliland. hore waxa uu timi Hargeysa haweenay u ololeysa arrimaha dadka jinsiga ee isguursada.